cutubkan saddexaad wuxuu ku saabsan yahay ethical decision making and moral judgment. Go-aan samaynta muxuu ahaa anshaxeed iyo sidoo kale moral judgments ama xukunada dhanka akhlaaqiga. Marka cashir koowaad ee ku bilaabanaya waxaa su-aal weyn: how can we make ethical decisions and actions? Sidee baan u samayn karaa ficilo iyo go-aano anshax? Marka su-aashan intaan jawaab loo helin, marka hore waa inaan isweydiino what things are good or bad. Sheebaa saxa ama sheegeebaa fiican ama xun. Marka aragtiyaha kala duwan iyo dadiyada kala duwan siyaabo kala duwan bay u arkaan muxuu ahaayey shayga saxda iyo qaladka. Waxaa dhacda in shayaal fara badan aan u aragno consequence-ka ama natiijada ka dhalanaysa inagoo ku salaynayna saxnaanshooda iyo qaldanna xagga ka fiirno. Qaarkoodna ficilka laftiisa in saxnaanshihiisa qaladadiisa lagu qiimeeyo. Marka waxaa la yidhi haddaba mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee ethical reasoning waxaa weeyaan baa la yidhi inaan falanqeyno, sidoo kale aan si caqli ah ugu xisaabtano baa la yidhi qiyamka iyo sidoo valueska aynu haysano ama valueska iyo qiyamka aan aaminsanahay, sidoo kale claimska ama sheegashooyinka aan samayno ee la xidhiidha waajibaadyada muxuu ahaay aan isku leenahay. Sidoo kale waxaa la yidhi second key task of ethics iyadana waa in la qiimeeyo the adequacy of reasons that we give for our actions. waxaa la yidhi sababaha aynu bixino ama aan ka bixino muxuu ahaay ficilada aan samaynayno, sababeynta aan u samaynaynay intee leeg bay ku filan yihiin muxuu ahaay ficilkaas. sababahaas intee leeg bay ku filan yihiin inay cudurdaar u noqdaan ficilkaas saxnaanshihiisa oo kale inaan qiimeyno. Intaa waxaa sii dheer ethical problems badanaa ma aha baa la yidhi kuwa u cad sida dhibaatooyinka kale ama masalooyin kale in la xaliyaana oo si kama dambaysta loo xaliya baa la yidhi it's not always possible. Badanaa suuragal ma aha. Marka waxaa la yidhi waxaa jira haddaba mabaadii iyo values ay iska leeyahay muxuu ahaay moral judgmentska ama xukunka akhlaaqeed. Ficil gaar tusaalahaan inaanu moral ama immoral inaan ku xukmino midku yahay, waxaa jira principles iyo values laga duulo. Marka moral intuitions and critical reasoning waxaa jira moral intuitions waxyaabahan nagu soo dhaca ee dhanka akhlaaqda ku saabsan iyo sidoo kale critical reasoning ayuu ku saabsan yahay qaybtana. Marka waxaa la yidhi daraasiinta ethics waxay ku lug yeelataa reasoning about our feelings, inaynu sababayno muxuu ahaay dareenadeena. Si kale haddaan u dhigno waxaa la yidhi it involves making sense of and rationalizing our intuitions. waxay ku lug yeelataa inaynu macno u samayno, sidoo kale aan wax maangala oo caqligala ka dhigno intuitionskeena, waxyaabaha inagu soo dhacay ku saabsan maxaa saxa maxaa qalad oo wax dadku qaadan karaan inaad ka dhigto. Marka rationalization waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhi waa inaad wax muxuu ahaay maangala aad ka dhigto waxaanaad soo jeedinayso oo dadka ka dhaadhicin karto. Marka rationalizationku wuxuu yimaadaa baa la yidhi when we use what at first glance seem to be rational or credible motives to cover up our true motives. waxaa la yidhi rationalizationku wuxuu dhacaa marka aynu isticmaalno baa la yidhi ama adeegsano wax marka koowaadba u muuqdo inuu yahay wax maangal ah ama waxa dhabta ah ee caqli galka ay nagu dhiirigelinayaan inaan ficilkan samayno si aynu u qarino kuwa dhabta ah ee nagu dhiirigeliya, lagana yaabo inay yihiin baa la yidhi unconscious, kuwo muxuu ahaay qarsoon inay yihiin. Marka waxaa jira reasoningiga noocyo kala duwan baa loo sameeyaa oo qaabab kala duwan baa sababeynta u dhacdaa. Midda koowaad waxaa weeyaan reasoning by analogy. waxaa la isbarbardhig ama isu ekaanshaha laba shay ka dhexeeya iyadoo la adeegsanayo in la sababeeyo wax. waxaa la qaybtan waxay sharaxdaa baa la yidhi one thing by comparing it to something else. hal shay baa la sharaxaa ama la qeexaa iyadoo shay kale la barbardhigayo that's similar, kaasoo la mid baa la yidhi. Inkastoo laga yaabo inay kala duwan yihiin baa la yidhi haddana yaa la isbarbardhigi meelaha qaarkood laga yaabo inay kala duwanaan. waxaa la yidhi analogyga saxda ahi waxaa weeyaan waa midka similarity outweighs the dissimilarity and is clarifying. waa midka waxyaabaha labada shay ku kala duwan yihiin ay ka badan yihiin ama ka miisaan culus yihiin waxyaabaha ku kala duwan yihiin. sidoo kalena waa mid caddeynaysa oo wixii muxuu ahaay si cad loogu daliishan karo hadday analogygani mid good ah tahay.
sidoo kale qaabka labaad ee wax loo sameeyo waxaa deductive reasoning. Deductive reasoning waxaa la yidhi waxay adeegsataa muxuu ahay principle to establish xaalad gaar ah ayaa loo adeegsadaa. Tusaale waxaa la yidhi every person has human rights. Waxaa la yidhi ruux kasta wuxuu iska leeyahay xaq xuquuq bini aadan buu leeyahay. And you are a person. Adiguna markaa shakhsi baad tahay. Markaa saa darteed you have human rights like every person. Sida ruux kasta ama sida ruux kasta uu xaq u leeyahay bini aadan yaa adna u leedahay maadaama bini aadan tahay. midda saddexaad waxaa inductive reasoning. Inductive reasoning waxay isku ama waxay ku lug yeelataa in caddayn loo keeno to support a hypothesis si taageero loogu raadiyo muxuu ahaye mala awaal. The greater the evidence for a hypothesis the more you may rely on it. waxaa la markastoo ay badato caddaynta loo hayo muxuu ahaye mala awaalkani sidoo kale waxaa sii badanaysa inta aan isku halayn karno. marka waxaa jira baa layidhi tusaale ahaan xaqiiqada ah baa layidhi there is mounting evidence that the burning of fossil fuels. waxaa layidhi xaqiiqada ama caddeymahaasi soo taraya ee sheegaya in shidaalka qalfoofka oo la gubaayay inay leedahay baa layidhi a detrimental effect on global climate. saameyn waxyeelo ay ku leedahay baa layidhi cimilada adduunka. caddeymahaasi soo taraya sheegaya daraadood tusaalehaan ayaa loo adeegsadaa baa layidhi to substantiate the argument that we have a moral duty to reduce carbon emissions. in muxuu ahaye loogu raadiyo muxuu ahaye caddayn ama lagu xaqiijiyo dooda ah inayna saaran yahay muxuu ahaye waajibaad akhlaaqeed oo ah inaynu yarayno kaarboonka aan hawada kusii daynayno. marka dood haddaba markii la tijaabinayo qaab kala duwan baa loo tijaabiyaa. waxaa layidhi waxaa jira 3 qaab 3 main ways of testing a moral argument. dood dhanka akhlaaqda saddex qaaboo loo tijaabiyaa jira. marka 3 qaab midkood waxaa weeyaan factual accuracy saxnaanshaha xaqiiqeed ee doodan in la tijaabiyo. midka labaadna waxaa weeyaan consistency joogtanimada. tusaalahaan ruuxani halkan shay hal maro hal arrin laba go-aan oo iska soo horjeeda ama laba aragti iska soo horjeeda ruux waa inuu hal mar ka wada aaminsanayn waa inuu joogto yahay. sidoo kale goodwill muxuu ahaye niyad wanaagga qofkan muxuu ahaye moral judgmentiga samey moral argumentiga ama samey judgmentiga go-aanka ama dooda akhlaaqeed sameynaya. waxaa jira haddaba framework for moral decision making hanaan guud oo la raaco oo si go-aan muxuu ahaye go-aan akhlaaqeed loo sameeyo. marka waxaa la yidhi inkastoo ethics deals with right and wrong inkastoo baa la anshaxu uu ku saabsan yahay saxda iyo khaladka maxaa sax maxaa khalad ah it's not a discipline that always leads everyone to the same conclusions. waxaa la yidhi maaha baa la yidhi laakiin haddana maado cid kasta conclusion isku mida u horseeda oo iyadoo sax iyo khalad daraasiina haddana dad kala duwani conclusions ama gabagabooyin kala duwan inay la yimaadaan baa laga yaabo siyaabo kala duwan wax u arkaan. marka waxaa jira haddaba the 5 different approaches to values to deal with moral issues are waxaa la yidhi 4 ama 5 qaab loola muxuu ahaye ku saabsan arrimaha la xiriira muxuu ahaa moral issueska ama arrimaha dhanka akhlaaqda 5 qaab loo muxuu ahaye darasiyo ama loo sharaxo waxaa ka mid ah fairness and justice midna doon arki doona the common good sidoo kale the utilitarian waxaad xusuustaa baa leeyahay waxaan previously inaan kasoo doodnay tuqii labaad baan filaya the rights iyo sidoo kale virtues. marka fairness and justice approach aragtidan waxay leedahay fairness or justice approach waxaa la yidhi ethics has its roots in the teachings of ancient Greek philosopher Aristotle. waxaa la yidhi aragtidan ama approachkani wuxuu asalkiisa kasoo jeedaa muxuu ahaye aragtiyihii muxuu ahaa Greek falsafadyahankii hore ee Greega ee Aristotle loo odhanayay kaasoo yidhi equals should be treated equally and unequal is unequal. wuxuu leeyahay wixii isku mid si ha loola dhaqmo wixii kala duwan si kala duwan ha loola dhaqmo. marka aragtidan waxay leedahay shayaasha isku midka oo dhan si isku mid ah loola dhaqmo wixii kala duwanna si kala duwan ha loola dhaqmo. markaan eegno odhahda muxuu ahaye ninkan marka moral questionka ama su-aasha asaasiga ee approachkan ay tahay in la isweydiiyo waxaa weeyaan how fair is an action ficilkani intee in leeg buu cadaalad yahay. marka rightness ama wrong saxnaanshaha iyo khaladnimada iska leeyahay ficilkani waxaan ku salaynaynaa intee in leeg buu ficilkani cadaalad yahay. sidoo kale waxaan isweydiinaynaa does it treat everyone in the same way ficilkana waa layidhi si isku mida ma ula dhaqmaysa dadka oo dhan or does it show favoritism or discrimination mise
eex iyo takoor ay muujinayaan markaas xanaasho iyo qaladka dhankaas ayaan ka qiimeynayna midda labaad oo hadda common good approach waxaa la wanaagga guud iyadoo dhanka laga eegayana iyadan sidoo kale waa la eegi kara muxuu ahay moral issues waxaa la yidhi this approach ethics wuxuu ka soo qaadaa baa layidhi a society comprising individuals bulshadani ka kooban tahay maxaa la yidhi ashkhaas whose own good is inextricably linked to the good of the community waxaa la yidhi muxuu ahaayey bulsho ashkhaas ka kooban kuwaasoo baa la yidhi wanaagoodu si aan laga sooci karin oo ugu xidhan yahay muxuu ahay wanaagga bulshada oo wanaagga shakhsigu wuxuu ku xidhan yahay oo markasta loo xidhiidhaa muxuu ahay wanaagga bulshada marka community membersku baa la yidhi are bound by the pursuit of common values and goals xubnaha bulshada waxaa isku haya muxuu ahay ahdaaf guud iyo qiyam guud iyo waxyaabo guud ay wada aaminsan yihiin marka principle of the common good approach wuxuu leeyahay what's ethical waxa anshaxiyey is what advances the common waa waxa markasta wanaagga guud ee bulshada horumariya marka anshaxnimada ficilka waxaa laga eegayaa muxuu ahaa inteen leeg buu wanaagga guud ee bulshada uu horumarinaya midda saddexaad oo ah the rights approach dhanka muxuu ahaaya in laga eego muxuu ahaa xuquuqaha the rights approach waxaa la yidhi isagu wuxuu diiradda saaraa individual's right to choose for her or himself xaqa uu shakhsigu u leeyahay baa layidhi inuu naftiisa wuxu dooro tusaale waxaa jira xuquuq asaasiya oo xaqa inaad xor noqoto waxaad rabtaa dooran karto xuquuqahaas inteen leeg bay ficilkani uu tixgelin inteen leeg buu ficilkani muxuu ahaa xuquuqaha ilaalinaya baa layidhi sidoo kale xuquuqo kale oo iyaguna kuwa soo raacay baa jira tusaale xaqa ah inaad dhibaato lagu geysanin xaqa tusaalahan privacygaaga ama waxyaabaha khusuusiyaadkaaga ku gaarka inay ku ilaashanaa waxyaabaha noocaas oo kale marka waxaa la yidhi in deciding whether an action is moral or immoral using this approachka ama aragtida inagoo adeegsanayna markaan go'aaminayna ficilkani ma akhlaaqi baa mise waa mid aan akhlaaqi ahayn we must ask waa inaan isweydiinaa muxuu ahaa su-aashan does the action respect the moral rights of everyone ficilkani ma tixgelinayaa muxuu ahaaye xuquuqaha akhlaaqeed ee iska leeyahay shakhsi kasta xagga inagoo markaan ka eegayna ayaan moralityga ficilka go'aamin karnaa waxaa la yidhi actions are wrong to the extent they violate the rights of individuals waxaa la yidhi ficiladu waa khalad dhinaca marka laga eego haddii ay xadgudub u geystaan xuquuqda dadka the more serious the violation the more wrongful the action waxaa la yidhi in kolba xadgudubka uu ficilkani geysanaya markastoo ay sii daraato ayaa khaladnimada ficilkuna sii badanaysaa oo ficilba ficilku ka xadgudbaya yuu ka xaysanaya yuu ka khalday marka general guud ahaan waxaa la yidhi ethical problem solving markaan xalinaynaba dhibaatooyinka la xiriira anshaxa marka xaqiiqada lasoo ogaado waxaa la yidhi su-aalahan shanta ah ku xisaabtan markaad ku dalayso inaad xaliso baa la yidhi moral issue marka su-aalahani waa shantii approach ee soo arooreen midba la xidha tusaalan su-aasha koowaad waxay leedahay what benefits and what harms will each course of action produce faa'iidooyin iyo khasaaro noocee ah uu ficil kastaa keeni doonaa and which alternative will lead to the best overall consequence midkeebaa ficiladan muxuu ahay midkeebaa keeni kara muxuu ahay saameynta ama natiijada ugu wanaagsan natiijada ugu fiican keebaa keeni kara oo markaan ka eegna muxuu ahay common muxuu ahay utilitarian marka ka eegna su-aasha labaadna waxaa leedahay aad rabtayna aad u baahantay inaad isweydiiso what moral rights do the effective arts have waxaa leedahay xuquuqo akhlaaqeeda noocee abay leeyihiin qaybaha uu ficilkani saameynayo and which course of action best respects these rights ficilkeebaana xuquuqahan sida ugu fiican u tixgelinaya marka ficilkaasa ah moral ama ethical ah waa rights theory ama rights approachka markaan ka eegno which course of action treats everyone the same except where there is a moral justifiable reason not and it does not show favoritism or discrimination su-aashan saddexaadna waxay leedahay ficilkeebaa ruux kasta si isku mid ula dhaqmaya marka laga reebay haddii ay jirto buu leeyahay muxuu ahay sabab akhlaaqiyan muxuu ahay sax cudurdaar loo keeni karo oo ah inaan dadka la simin aniquali waa in loo dhaqmadii weyaan marka sidoo kale aan muujinayn favoritism or discrimination yaas weydiin ficilkaasa ah marka ethical waa markii laga eego dhanka muxuu ahay rights theory waxaan jeedaa justice and fairness way
which course of action advances the common good ficilkeebaa muxuu ahay wanaagga guud ee bulshada sare u qaada waa common good approachkii midda shanaadna waxaa weeyaan ficilkeebaa hormariya muxuu ahay moral virtues ama wanaagyada dhanka akhlaaqiga ayuu keeba hormar marka to whom or what does morality apply morality maxay ka dhigan tahay ama morality halkee loo adeegsan karaa yaase muxuu ahay moralityga lagu tabiqi karaa oo tusaalahaan morally responsible noqon kara waxaa la yidhi in discussing the application of morality four aspects may be considered hali markaan isticmaalka akhlaaqda ka hadlayno afar dhinac baa laga yaabaa inaan ka fiirino midda kood waxaa weeyaan religious morality waa xidhiidhka ka dhexeeya shakhsiga iyo muxuu ahay ilaahay ayay khusaysaa qaybta labaad waxaa weeyaan morality and nature waxaa la yidhi waxyaabaha dabiiciga iyo shakhsiga xidhiidh ka dhexeeya tusaale dhirta iyo xayawaanka iyo waxyaabahaas qaybtaas xaggaas ku saabsan tahay individual morality qaybtan waxay ku saabsan tahay shakhsigan iyo naftiisa xidhiidh ka dhexeeya iyo social morality oo qayb ku saabsan muxuu ahaa bulshada iyo shakhsiga xidhiidhka ka dhexeeya who is morally or ethically responsible yaa anshaxaan ama akhlaaq ahaan yaa mas-uula waxay ka dhigan tahay ficiladiisa yaa loo qaban oo sax iyo khalad muxuu ahaay ficiladiisa loo eegi morality waxaa la yidhi morality pertains to human beings and only to human beings waxaa la yidhi moralitygu waxaa iska leh ama la xidhiidhaa keliya bini aadamka waxaa kale kasoo hadhay o dhanna waxaa la yidhi waa speculation waa qiyaaso waa xayawaanka kale loo qaban maayo maxaa ficiladooda ay sameeyaan oo ficilkani waa moral iyo immoral kuma xukminayno moral responsible mas-uulba kama ficiladooda xag dhanka akhlaaqeed marka loo eego recent experimentation with the teaching of language to animals suggests that they are at least minimally capable of developing some thought processes similar to those of humans waxaa la tijaabooyin waqti dhow la sameeyey ayaa waxay muujinayaan xayawaanka oo la baro muxuu ahay luuqadda inay muujinayso inay ugu yaraan muxuu ahay awood u leeyihiin inay qaab fikir biniaadamka la mid ay horumariyaan marka it's even possible that they might be taught morality in the future sidoo kale waxaa suuragal ay leeyihiin in mustaqbalka akhlaaqda xitaa la baro as humans are sida hadday biniaadamku yihiin oo kale marka if this were to occur hadday arrintani dhacilaacilahayd ama ay dhacdaba the animals could be held morally responsible for their actions xayawaanka marka ficiladooda waa muxuu ahay mas-uul bay ka noqonayaan oo ficil qaldan hadduu sameeyo xayawaankii waa lagu xisaabtamay ka dhiganta hadday mas-uul ka noqonayaan hadday dhacdo marka waqtigan xaadirka laakiin most evidence seems to indicate that they as well as plants should be classified as either non-moral or moral laakiin cadeymaha hadda waxay muujinayaan in muxuu ahaye xayawaanka iyo sidoo kaleba dhirtaba waa inaan muxuu ahaye ficiladooda aan ka dhigna baa layidhi non-moral ama amoral magarantay morality moral iyo immoral midna ma noqonay waa wax moral waa neutral waa dhexdhexaad ficilka oo sax iyo khalad midna kuma tilmaamay moral judgmentska haddaba go-aanada muxuu ahaye ama xukunada akhlaaqeed waxaa layidhi markaan xukminayno ama in judging conduct or action waxaa layidhi ficil markaan xukminayno we have to consider waxyaabahan waa inaan ku xisaabtanaa motiveska waxyaabaha soolaan ku dhiirigeliya meaniskii hababkii u maray ficilka consequenceska iyo and sometimes the situation marka motiveska waxaa la yidhahdaa waxay ka dhigan tahay waa the intention waa niyadda ama waa qasadka or why an action is done ama sababta oo ficilka ka dambaysa ruuxan uu sameeyey maxaa ku kiciyo oo ku dhiirigeliyey inuu ficilka sameeyo xagga waa inaan horta ku xisaabtanaa sidoo kale waxaan ku xisaabtanaynaa meaniskii habkii iyo methods farsamadii u maray means can be defined as agents wuxuu noqon karaa baa muxuu ahaye wakiil muxuu ahaye instrumentiga ama methodkii uu adeegsaday baa layidhi to attain an end si uu muxuu ahaye goolka ama hadafka gabagabada u gaaro consequenceskuna waxaa weeyaan waa cawaaqibta ama natiijooyinka ka dhasha baa layidhi consequencesku waa the effects or results of a moral decision based on a value iyadoo qiim lagu salaynayo ficilada ama saameynta ka dhalata ficilka ayaa la yidhahda moral situationkuna sidoo kale moral situationku waxay ku lug yeelataa moral agentskana waa arki doona waxaa noqda un keliya biniaadamka human beingska oo ah maxaa maadaama go-aanadooda ay iyagu qaataan
sidoo kalena muxuu ahaye decisionska ay sameynayaan iyagoo soo jeeda ay sameeyaan. xayawaanada kaloo kale moral agents ma noqonayo waan arki doonaa. Who makes an action moral? waxaan jeedaa what makes an action moral? maxaa ka dhiga ficil akhlaaqi ah? maxaa ka dhiga? marka waxaa la yidhi featureskan soo socda ayaa ficil ka dhigi kara moral, oo featureskan hadduu yeesho ficilkaasi waa moral. macnaheed waxay ka dhigan tahay sax iyo khaladku soo gelaya. kow waxaa la yidhi moral actionku involves an agent. horta waa inuu ku lug yeesho muxuu ahaye cid wakiila oo ruux moral responsible waa inuu ficilkan sameeyaa noole. if something waxaa la yidhi if something is a natural event, hadduu shaygu yahay baa la yidhi muxuu ahaye dhacdo dabiici ah, or an action performed by an animal, ama uu yahay muxuu ahaye ficil uu xayawaan sameeyey, then it's moral neutral. akhlaaqiyan waa mid dhexdhexaad. waxay ka dhigan tahay it does not appear on our moral radars. waxaa la yidhi radarka morality-ga ma soo gelaya sax iyo khalad. morality-gooda ma xukminayno. humans can be moral agents. waxaa la yidhi biniaadamka ayaa moral agents noqon kara, ama any creatures, ama waxaa la yidhi makhluuq kasta ama noolo kasta that can freely and thoughtfully use its actions. noolo kasta oo baa la yidhi muxuu ahaye si xora u dooran kara muxuu ahaye ficiladiisa, waxaa loo xisaabin baa la yidhi inuu moral agent yahay. sidoo kale moral act waxaa la yidhi involves intention. wuxuu ku lug yeeshay muxuu ahaye qasad oo wax loola jeedo waa inuu jiro niyad iyo wax iska dhacay waa inuu ahay. An intention here refers to our motives that are important to determine the rightness or wrongness of an action. waxaa la intention hadda waxaa laga wadaa motiveska ama waxyaabaha ficil inagu u kiciyey, kuwaasoo muhiim u ah inaan go'aamino saxnaanshaha iyo khaladnimada ficilku iska leh. waxaa la yidhi if an action is done accidental, haddii sikadiisa uu ficilku u dhaco si kama ah oo sikadiisa u dhaco, it may be counted as moral neutral action. waxaa laga yaabaa in aan u xisaabino inuu yahay ficil moral neutral oo khalad iyo sax midna ayna. laakiin marka qaarkood unintentional actska waxaa laga yaabaa inay morality-ga inay soo galaan. sida tusaale ahaan haddii uu ku dhaco baa la yidhi through negligence, dayacaad oo kale, mas-uuliyaddaadii oo kale. tusaale ahaan haddaad dayacdo ficilkaasi haba u dhaco accidentally, laakiin haddana waa la yidhi moral responsible baa noqon oo khaladka ficilka ka yimaado mas-uuliyadda qaadan. midda saddexaadna waxaa weeyaan a moral act affects others. waxaa la yidhi moral act ama ficilkan akhlaaqeedi waa inuu dad kale saameyn ku yeesho. moral action is needs not on an agent. keliya uma baahna baa la yidhi wakiil fuliya, and to be deliberate, iyo sidoo kale inay ula kac ahaadaan. sidoo kale waxay u baahan yihiin to affect others, kuwa kale inay saameeyaan si aan ficilkan waa moral u dhahno. waxaa la yidhi dadkan ku moral patients dadka la yidhahdo ee dadku ficil ku dhacayo si weynna weli waa inuu saameynayo. waxay ka dhigan tahay an action that waa inuu noqdo baa la yidhi harmful, mid dhibaato keensanayo, oo ah mid ahaata baa la yidhi physical, psychological, emotional or depriving others of happiness. ha noqdo baa la yidhi dhibaatada u geysanaya mid duleed, mid psycholojiyada maskaxeed, ama mid dareen ha ahaato, ama dad kale ruux farxadiisii ha ka qaado, ama saameynta uu keensanaya ha noqoto baa beneficial consequences for others, inuu faa'iido natiijo faa'iido leh ama cawaaqib faa'iido leh inuu kuwa kale ku leeyahay. marka waa inuu saameyn keensaa. ficilaan saameyn keensanayn morality-ga ma soo galay. waxay ka dhigan tahay sax iyo qalad nimadiisa ma qiimeynayo. marka waxaa la yidhi why should humans ama why should human beings be moral? biniaadamku maxay tahay inay akhlaaq u yeeshaan oo ruuxu inuu moral u dhaqmo maxay yihiin waxyaabaha ku qasbay? marka waxaa jira doodo fara badan. marka doodan waxaa ka mid ah argument from enlightened self interest. doodan waxay ka imanaysaa dhan danaha shakhsiga ayaa ku jirtaba in muxuu ahaye uu moral u dhaqmo. waxay leedahay if everyone tried to do and be good, waxaa la yidhi haddii ruux kasta isku dayo baa la yidhi muxuu ahaye sidoo kale uu noqdo baa la yidhi ruux wanaagsan, sidoo kalena isku dayo inuu ka hortago waxyaabaha xunxun, it would be in everyone's self interest. danaha qof kasta ayay noqon. tusaale ahaan haddii baa la yidhi koox dada no one killed stole, waxaa la yidhi haddaan ruux la dilin, waxba laga xadin, been la sheegin, ruuxna la khiyaamin, then each member of the group would benefit. waxaa ruux kasta oo ka mid a kooxdaasi faa'iido ka heli. marka inaad moral u dhaqanto si akhlaaqi aad u dhaqanto muxuu ahaye danahaaga ku jira iyo doodan leedahay. doodan kale waxay leedahay tradition and law. waxaa jira sharciyo iyo xeerar iyo dhaqan dhigaya ama inagu qasbaya inaynu si akhlaaqi u dhaqanno. waxaa jira waxaa la yidhi this argument suggests that doodan waxay leedahay because traditions and laws established over a long period of time, waxaa la yidhi govern the behavior of human beings. sharciyo iyo muxuu dhaqano dheer soo jiray maadaama dabeecadda shakhsiga ay hagayaan
and because these traditions and laws urge human beings to be moral maadaama ay waalid ku baaqayaan ama ku doodayaan muxuu ahay xeerashani in biniaadamku u dhaqmaan muxuu ahay si akhlaaq ah oo ayna immoral u dhaqmin there are good reasons for being so saa darteed sababo waxaa jira sababo ay tahay inaan saa u dhaqnaa jiro oo sabab inagu kalifaysa inaynu moral u dhaqnaa jiro maadaama sharciyadiisa dhigaya doodan saddexaad waxay ka imanaysaa muxuu ahay common human needs ama baahiyaha biniaadamku ay ka siman yihiin marka doodan waxay leedahay baahiyahan ay biniaadamku ka siman yihiin si loo buuxiyo waa inay jiraan xeerar akhlaaqeed oo ay dadku samaysteen sidoo kalena ay ku dhaqmayaan ay raacayaan waxaa layidhi dhammaan biniaadamka o dhan waxay leeyihin money needs desires goals and objectives in common baahiyo badan iyo sidoo kale doonitaano iyo ahdaaf iyo ujeedooyin ay ka siman yihiin tusaalahaan dadka o dhan waxaa layidhi gudahaan waxay u baahan yihiin inay helaan muxuu ahaay saaxiibtinimo jacayl farxad xorriyad nabad iyo halabuurnimo sidoo kale degenaansho muxuu ahaay noloshooda ay ku helaan keliya noloshooda mee sidoo kale dadka kalena inay helaan marka waxaa layidhi uma baahna baa layidhi further examination ama si hubin area ama inaan ogaano uma baahna baa layidhi inaan ogaano si dadkana ay baahiyahan u buuxiyaan inay tahay inay asaastaan muxuu ahaay xeerar akhlaaqeed sidoo kalena ay raacaan kuwaasoo ku dhiirigeliya inay iskaashadaan sidoo kalena muxuu ahaay ka xoreeya baa layidhi xabsida ah inay dadkani lumiyaan muxuu ahaay noloshooda oo sidoo kale dhibaato loo geysto ama wax laga xado been loo sheego la khiyaamo ama xorriyaddoodii soolaan la xadido ama xabsi la geliyo marka labadan hadaf si loo gaadho labadan hadaf oo ah in dadku ay iskaashadaan iyo sidoo kale inay xor ka noqdaan dhibaatooyinkan oo dhan doodan waxay leedahay waxaa loo baahan yahay muxuu ahaay inay jiraan xeerar ay dadkani aasaasteen sidoo kalena ay raacayaan markaas halkaas waxaa ku eg cutubkii saddexaad wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu